بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفت لي هلكم waxaan uga bilaabanayaa safar xamar ayaan ka baxnay afgoyaan tagnay afgoy waxaan ka qaadanay gaariga caasiga oo kuraas la'aanta ah oo lagu talagalay in muuska iyo qudaarta lagu soo qaado waxaan sii marnay dhul noocyo kala duwan leh ilaa 3 nooc oo kala duwan ah safarkeena aad ayuu dheeryahay sida la sheegay in waxaa la sheegay in caawa la gaari doono markay tahay saacada 11 saac qaybaha dhulkan waa qaybo u fiican geela iyo xoolaha noocyadooda kale waxaan gaari doonaa qaybihii beeraha iyo noocyo kale oo ayagana u roon xoolaha waxaa la soo gaaray salaadii maqrib oo nu istaagnay si aan iskaga bixino waajibka qorraxda ayaa dhacday hadeer waa dhul qurux badan hadeer waaga ayaa noo bariyey quraacda maanta waxaa waaye cambuulo siday tahay beerta looga soo guray oo fresh ah iyo bun sixin ah soo gulaaday wiishan yar aad ayaan u xiiseynayay inaan arko laakiin way iga cararaysaa waxaa halkan idinkaga muuqdo tuulo yar oo aad u qadiim ah tuuladan waxaa loogu talagalay oo gumaysiga talyaaniga uu dejiyey dadka shaqaalaha oo beeraha uu shaqaynaya ceelkan ayuu u sameeyey si ay uga cabaan asigana meel xoogaa ka durugsan ayuu degan yahay ceelkiisa iyo gurigiisana uu ugu yaalo dadka deegaankan waxay ii sheegeen magaaladan in loogu magac daray ninkii talyaaniga ahaay oo meeshaan haysan jiray oo hadeer lagu magacaabo magaalada tuulada waxaa lagu magacaabaa ilaaliyo laakiin allaariyo la dhihin jiray ninkii meesha joogin jiray dadka ilaa hadeer sidii ayay u dhaqmaan subaxii beerta iyaa loo kala haa qaar xoolahooda ayay soobsanayaan sida wiilka dhalinyarada horteena ka muuqdo ariga soo wado meesha waxaa kaloo idinkaaga muuqda kili oo sameeyey talyaaniga gumaysta ahaa halkan waa buundada weyneed dhulka aadka u quruxda badan waa meeshaan ayuu ka bilaabanayaa aad iyo aad ayuu qurux badan yahay laakiin waqtigana ma saamixin in aan fiidiyooyin qurux badan ka sameyno waxaa arkaysaa qumbihii oo sidii harka oo kaleeto maxaa la dhahay xitaa waxaan aaminsanahay dhulkan markii aad ku hoos socoto qumbaha iyo cambaha iyo isbaandheeska in xitaa qorax aad is arkayn oo masaafo intaa doonta aad socon karto adigoo qorax waxba ay ku taabanin waa dhul cajiiba qoraxdiisa ninka beerahan iskale waxaa laga yaabaa maanta haddii qaxootinimahooda soo bandhigo maya inuusan dhihayn oo hore ka aadayo sabuhuna way badan yihiin dadkana waxay u baahan yihiin wacyigelin runtii xaqiiqatan markaa meelahan joogtid waxaa dareemaysaa noloshii hore 100 sano ka hor intii nooleed iyo sidii lagaaga sheekeynayay
nolosha casriga dhibaatadeeda ay leedahay kiimika ay leedahay waxyaabo badan ay leedahay cuntadii wax walbo maanta oo arkaysaan kiimika ayaa ku jirto halkan waxaan ujeedaa gaari faraski gaari dameerkii nolosha waxaad dareemaysaa inay casri u baahaneen ay u baahan tahay waxyaabihii hore dabiiciga geedka ama geedka isbaandheeska hadeer miraha isbaandheeska iyo cambaha iyo intaba xilligooda waxaa xilligooda la joogaa qaraha iyo muuska iyo liinta waab yar ayaa meesha idinkaaga muuqata waabtan neecaw aan caadi ahayn aad dareemaysaa markaa harsanaysid saaxiibayaal fiidiyooga asaasii dhammaysano waa yara hirgebsanahay codkayga muqurax badna anasa dhammaysano halkan kula kulmay wiil aad u daayar oo noo sharxi doona asagana karooga sida loo qabto bal haddii la qaban karo oo aan wax ka weydiiyey asagana uu sheegay inay fududahay sida lagu qabto karooga
ayriso krogan meesha maroysa loo qabtaa كروكو ah كروكو تاب كلم قوم موس برينتي هدي برلو ما يواه كليد برلو قدو ديه geedaga ka dhiyay geedaga dus ka dhiyay markan lug bobodeys hadii oo hadda saas ado ku obsada burko lindayaan moosalan ka dhiyay birto birmakaanta dheer yardig da moosalan ka dhiyay markuu yar yahay oo yariiska yaa malaq yariiska lug bobod kor burreli ku kaas dhiyay futu gadoomi lug bobodele ay tableed seekas may tuugo ma santaay